markii saddexaad oo gabagabo u ahayd tira fadhiya oo ay maxkamadda sare ku dhageysanaysay eed ka dhan ah Cabdirasaaq Xuseen Tahliil Inacalul Geela ayaa maalinta lagu soo gabagabeeyay hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa weydiiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida inay keenaan maxkamadda horteeda markaatiyaasha ku xusan eedeysanaha kiiskiisa. markii saddexaad aan galno waaye marka waxaan filayaa in xeer ilaalinta loogu fadhiyay markaatiyaalkii ay ku soo qoreen eedooda inayna hor keenaan. marka warka ma sii dheeraanayo waxaan leeyahay xeer ku soo dhaw markaatiyada la imaam. ma jirin wax markaatiya oo la hor keenay maxkamadda balse bedelkeed xafiiska ayaa soo jeediyay inaysan sii socon karin xilligan kadib dacwad qaadista eedeysanaha xaggooda. waxay sidoo kale soo jeediyeen in eedeysanaha maxkamadda go'aan ka gaartay iyadoo la raacinayo tallaabooyin amni oo xadiday dhaqdhaqaaqa eedeysanaha iyo maslaxada gobolka Mudug gaar ahaan degmada u kala qaybsan maamul ahaan maamulada Puntland iyo Galmudug ee Gaalkacyo. Axmed Jiino Xasan ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaan weydiiyay waxa iska bedelay wixii laga sugayay ee ahayd markaatiyaal. kiiskaana horay maxkamada kale ay u galeen dukumentigii iyo xukunnadii la soo saaranay ay yaalaan asbaab kale oo waqti dheer dib loogu sii dhiga aanay jirin sidaas ayaan ku sababaynay asbaabta kale aan ku soo gabagabeynay ama aan ku sababaynayna waxay tahay in sabab la'aan xukunkii hore ay jirto marka mar haddii ay sabab la'aan jirto waxay ka mid tahay waxyaabaha xukunka dhigi kara wax kama jiraan taasna way ka mid tahay sababta maxkamadan horay ayay xukunka u jabisay sidaa darteed ayaan waxaan u dhahnay caddayn la'aan darteed lama sii wadi karo waxaan kaloon codsanay maadaama ay jireen arrimo la xiriira dhinaca ammaanka oo eedeysanaha iyo deegaankii oo laga soo qabtay iyo deegaankaas dhib ka jira dartiis na waxaan dhahnay in la saaro tillaabooyin la xiriira ammaanka sida ilkuhaynta booliiska waxa loo yaqaan police surveillance arrintaasna waa codsanay maxkamadda ayaana go'aanka laga sugayaa. dhinaca kale qaranada u doodaya ayaa aad u soo dhaweeyay soo jeedinta xafiiska xeer ilaalinta waxay sidoo kale ballan qaadeen in ay diyaar u yihiin wax kasta oo ay ku jirto danta guud in ay ilaaliyaan iyagoo maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha la siiyo xorriyadiisa. tan uu soo jeediyey xafiiska xeer ilaalinta oo ah in maadaama uu qalalaasay meesha ka dhacay ay maartay security-ga dhinaciisana laga yaabo in problem iyo wax uu ka dhaco maxkamadduna inay go'aan ka qaadato waxaan diyaar u nahay muwakkilkeygana uu diyaar u yahay in wax allaale wixii masaalixda caamka ah wax u dhimaayo goob kasta oo uu joogo haddii Gaalkacyo uu joogo iyo haddii Muqdisho uu joogo wax lid ku ah jiritaanka dawladnimada inuusan lug ku yeelanin inuusan ka qayb qaadanin wax kasta oo wax u dhimi karo nabadgelyada guud iyo wada noolaanshaha ummadda shacabka Soomaaliyeed inuusan tallaabo lid ku ah inuusan ka qayb qaadanin taasina maxkamadda horteeda ayuu ka ballan qaadayaa wixii tallaabo ah oo maamul ah oo ay maxkamaddu nagu amarto in muwakkilkeena si loo gaaro xaqiiqada dhabta ah loo gaaro muwakkilkeena uu bari u noqdo in wixii maamul ah ee ku saabsan lagu dhowri karo jiritaanka ummadda iyo nabadgelyadana lagu soo karo inaan annagu damaanad qaadayno muwakkilkeena uu maxkamadda horteeda uu ka damaanad qaadayo. gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uu u sheegay dhammaan ka qaybgalayaasha in maxkamadda go'aan ay ka soo saari doonto kiiskan. kiiska sidaas ayuu ku gabagabaysan yahay wixii go'aana maxkamadda dib ay ku soo sheegi doontaa. eedeysanaha Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ayaa xilliyo kala duwan loo xiray arrimo la xiriira argagixisanimo. maxkamadaha ciidamada Puntland ayaa xilliyo kala duwan ku xukumay dil iyo xabsi balse November 2018 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee heer federaal ayaa looga fursan waayay kiiskan oo culeyskiisa lahaa oo ay la soo wareegtay. waxaa la filayaa in go'aanka madambeysa laga gaaro kiiskan soo jiitamay tan iyo 2012. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.